gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabduqaadir Maxamed Nuur Siidi oo saacadii la soo dhaafay ayaa socdaalo kala duwan waxa uu ku maray deegaano u dhaxeeya degmada Oodigle iyo degmada Afgooye isagoo ugu dambeyn gaaray degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Gudoomiyaha ayaa dhiirgelin u sameeyay ciidamada qalabka sida ee dawladda. Gudoomiyaha ayaa waxa uu ciidamada qaybta 12aad ee Abriil ku sugan degmada Afgooye gaarsiiyay hal neef oo geel iyo sidoo kale raashin oo uu tala galay in uu ku dhiirigeliyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Gudoomiyaha maamulka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose Awees Cabdullaahi Cumar ayaa isagana waxa uu sheegay in aad ugu faraxsan in ciidanka maanta lagu wareejiyo raashinka iyo neefka geela. Faraxsanahay waan soo dhaweyneynaa geelan iyo wixii lagu cuni lahaa oo gudoomiyaha uu gartay in ciidamada uu lagu dhiirigeliyo mar walba sida gudoomiyaha u sheegay waaye maalin walba week walba inaan bixino arigi bil walbana geeli inaan bixino waa soo dhaweyneynaa. dhanka kale waxaa goobta ka hadlay taliyaha ururka 31aad guutada koowaad ee qaybta 12aadka Abriil oo uu ka gadoomay maamulka raashinka iyo neefka geela oo loogu tala galay. Muhiimaddu waxay tahay in maamulkii degmada iyo kii gobolka iyo ciidankii oo isku faraxsan inay galabta halkan ay wada taagan yihiin xeradan maantana muxuu ahaa ay noo fidiyeen muxuu ahaa qadadan neefka geela ah oo halkan noo taagan iyo bariiskan iyo biyahan iyo wax ka badan oo horena ay noo siiyeen hadeerna ay noogu maqan yihiin. horta waxaan leenahay aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa waana ka qaabilnaa. ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabduqaadir Sheekh Maxamed Nuur Siidi isagoo sheegay xilligan wixii ka dambeeyay maamulkiisa ay diyaar u yihiin in ciidanka howlgallada ay sameeyaan inay ka hor kacaan. haddaanu nahay maamulka gobolka iyo kan degmadaba waxaan go'aan ku gaarnay inaan la qadayno ciidankeena wax weyn maaha neefkaas geela aan keenay hasha iyo bariiskaas iyo cabitaanka waxaas oo dhan waxaan ugu tala galnay ciidanka dhiirigelin waay macnaha in ciidankii annaga aan waxba kala ahayn sida dareeskooda aan u soo gashtay in maxaan ku ayagana inay maamul u yihiin saaliga marka far kaligeeda fool ma dhaqdo saaliga marka waxaan rabnaa in la isku duubnaado ilka wada jir bay wax ku gooyaan saaliga marka waxaan rabnaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed haday booliis yihiin haday daraawiish yihiin haday military yihiin haday nabad sugid yihiin haday asluub yihiin waxa la isku dhahaa ciidamada qalabka sida saaliga marka waxa la rabaa ciidamada walaalaheena qaasatan oo halka la soo dejiyay oo amisom halka kala wareegay xeradan waa tusaale fiican wixii shalay awdheeglay bariir ka dhacay tusaale fiican ay yihiin ciidanka in ciidamada Soomaaliya isdifaaci karaan isku filnaanshan aan gaarnay haddaanu nahay dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda koonfur galbeed oo hadda maxaa ku ciidanka maamulka gobolka saaliga marka waxaan leenahay taliyaha ururka ee halkan amisom kala wareegay taliya maxamed gurey ya banduulis Ismaaciil waxaan leenahay taliyaha guutada maxaan ku raada oo ururku ka yimid taliya Generaal Xasan Jaamici iyo maxaan ku raada taliya ku-xigeenka qaybta maxaan ku raada 12ka maxaan ku raada Abriil Cornel Xasan Generaal Xasan Faqash raggii maxaan ku raada aan la qaanay oo soo dagaalamay argixisada al-shabaab darsi u dhigay. Rawda Aadan Cabdullaahi Hirshabeelle TV Jowhar.